الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا حلوان أحمد حسن عبدي أحمد تاجر waxaan maanta oo taariikhdu tahay 30kii bishii koowaad 2018 aan u qabtay shirkan jaraa'id oo aan kaga hadlayo warqad shalay ka soo baxday guddoonka baarlamaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland oo ku cadeynayo in uu igaga qaaday xasaanad. baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland waxa uu degsan sharci iyo dastuur ay ansixiyeen 800 qof oo reer Jubbaland kadibna baarlamaanka ay ansixiyeen madaxweynaha uu saxay sharciga isaga ah oo aragtaan oo ah dastuurka Jubbaland iyo xeer hoosaadka dowlad goboleedka Jubbaland oo isku dhaqo baarlamaanka oo loo yaqaan standing order labadaaba waxa ay ka qabaan warqadda iyada ah ayaan rabaa shacabka reer Jubbaland inaan la wadaago iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. walaalayaal waxaan u dhaaranay waa ummadda oo ku matalno ilaahay hortiisa aan u dhaaranay inaan matalayno danta dalka iyo diinta. waxa aan sheegaynana ama aan ku hadlaynana inuu noqdo wax ku qotoma dastuurka isaga ah iyo shariicada islaamka. shariicada islaamka marka laga soo tago waxa kaliya ee ku soo xigo ee dalkan lagu hagayo lagu dhaqo waa dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland ay ku heshiiyeen ummadda reer Jubbaland oo dhan inay isku dhaqaan. haddaba warqadda iyada oo lagu sheegay in laga qaaday xasaanadii oo guddiga anshaxa uu soo jeediyay eedeemo aan been abuura oo sal iraad aan lahayn waxba aan ka jirin cid ay kala tashteen aysan jirin iyo guddoonkii baarlamaanka oo qiray oo sheegay inuu aqbalay xasaanadka qaadida iyada ah una tiimbareeyay una saxiixay. warqadda iyada ah oo shalay media aad u wareegaysay saarakaysaan haddana aan hortiina idinka tusay waxaan dhihi karaa waa warqad aan ku fadhinin sharci oo sharci darro ah. maxay sharci darro ku noqotay? waxay sharci darro ku noqonaysaa wax kasta oo jabinaya dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland iyo wax kasta oo jabinaya xeer hoosaadka u yaala baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland waa sharci darro waxba kama jiraan. waxaa xaqiiqa oo la ogaan doono guddoonka baarlamaanka Jubbaland warqadan uu saxiixay baarlamaan weyne u taala waxa uu ka oran doono in sharciga uu ka qabo sharciga uu jabiyay isagoo ah afayeenkii dowlad goboleedka Jubbaland. qodobka 32 ee dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland waxa uu qoray xasaanadda xildhibaanka baarlamaanka. xildhibaanada baarlamaanka waxay leeyihiin xasaanad marka ay joogaan xarunta baarlamaanka iyo marka ay ku jiraan howlahooda maalmeedka howlaha baarlamaanka. xildhibaan laguma dacweyn karo marka uu fikirkiisa uu ka dhiibto doodaha kalfadhiyada ama kulamada guddiyada baarlamaanka. farqada 3 haddii aysan ogolaan baarlamaanka xubin ka mid ah golaha laguma soo bogi karo dacwad ama laguma soo oogi karo dacwad xeer ciqaabeed muddada uu hayo xilka xildhibaannimada. sidoo kale lama xiri karo lamana baari karo isaga iyo hooygiisa haddii aan lagu qaban isaga oo dambi faraha kula jira ayna khasab tahay in la hayo haddii aanu baarlamaanku ansixin. xildhibaan lama xiri karo xataa haddii maxkamad maqto. ama farqada 4 sharci gaar ah ayaa qeexaya xasaanadda xildhibaanada xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland. sidaa cad ayuu u qeexayaa qofka xasaanadda sida uu ku weynayo cidda ka qaadi karta. aniga xasaanadan waxa iga qaadi kara oo kaliya baarlamaan weyne igama qaadi karo dikreeto ka soo baxday afayeenka baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland. xeer hoosaadka dowlad goboleedka Jubbaland ee arkaysan qodobkiisa 7 sababaha lagu lumin karo xubinnimada golaha shacabka dowlad goboleedka Jubbaland sida ku xusan qodobka 3 ee dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland golaha mid ka mid ah waxay xilkoodu
كل من كلام كو إنه حلبان جريده لبو إنه ورقة إسعازلات بيو أفيان كبرلمانك قولها ونكا أخبره إسعازلات أيضا سدح إلا وغيره فالدنبيين حير قابلة ومحكمة كنتي مدة حبس كان كبدان تاي شنصا أفر إنه كما ناضو لبك الفدي وعادي اسكون حيجا سبب الآن شن إنه كحد جدبو شريعة الإسلام كدستور كدول الجبلات كجبلان حراسات ولا الشعب كسب بريرة هلك وحكى إن مركان آخرية لولا قلب هرتين أنك آخرية إن ستوصل لوجود تنتشر في دول الجبلات كجبلان أنا لو أبيلي قدومي أنا وكحد جدبي دستور كدول الجبلات كجبلان حراسات كدول الجبلات كجبلان سيدا أدرتين وعن عدين يا نورتين كعدين يا شعب الصوماليات الشعب كرجب اللاندا ورغدا ايضا شلي سو بخدي كو ورغدا ايضا مغا كقرن واحمد عبد حسن مغعيغا ما ورقد قدوم برلمان كسو بخدي او مغا خلبانك او خلدن yahay waxay cadeynaysaa degdeg loo qabay warqada in la soo saaro iyo fashilka lagu dhax jiray iyada ay ka cadeynayso ka magaca limeeyraado aniga magacayga waa Ahmed Xasan Cabdi warqadana ima qosayso been abuurka iyo waxa la soo dhoobay dhanna وشرعي درو قدون كان شرعي درو يقصي حي وحنا قدينا يا عرنتن ونكهر قيل دونا ونكذا كجد بتجد دونا برلمان وينا وديس الشرعي قال الجميع برلمان كان كجواب دونا وحكوك اللي في قدون كبرلمان كدول جبلان إن أنا قد ذكرته وقت عمل واحد ويقع حسانته ولو ما قد يجنا وخلدية عرنتا وشرعي درو ومن اللي مدي وحد جذب حلبان مدى الواحد قد بي dadka aan matalan waxa gudbay deegaanka aan matalan waxa gudbay lana aqbali karin loona dul qaadan karin sharciga la isla tagi doono wa billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh